wain kaana alafdalu muraacaatu tartiib sida fiicanse waxay tahay qur-aanka inta kor laga soo bilaabo in la isku xigo si isugu xiga in loo wado saasaa si afdalsan waa sidii saxaabada isku xejiyeen qaabka la ilaaliya ayaa ka fiicanna hadba noqnoqotid laakiin waa bannaanta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaan ku soo dhex jiray kitaabkii sifatu salaati nabi sal alayh wasalam kitaabku waxaynu ku dhex jiray qiraa'aadkii aljahr walisraaru fi lqiraa'ati fi salaati lleyl ayaan ku jiray axaadiisaan soo qaadanay wa kaana ruba wuxuu ahaa inuu nebigu qiradiisa uu maqashiin jiray mararka qaarkood intuu hoosu dhigo qofka qolka kula jira keliyaa maqlaayay marna waxaa maqlayay qofka cariishka hore oo ama daashka hore oo guriga ka horeeya qofka jiifaa joogaa maqlaayay wa kaana rubama rafaca sawtu akthara min dalika intaa wax ka badan inuu kor u qaado xataa yasmacahu maqlo man kaana calaa cariishihi cariishkiisa guriga ka horeeya qofka jooga ay khaarij alxujra qolka banaankiisa wey cariishka hadda qolka banaankiisa wey qof qolka banaankiisa joogaa maqlaayay saas kuu fasiray wabidaalika sidaasuu amara wuxuu faray habeen buu nebigu soo socday markaasuu guriga abubakar soo maray abubakar oo tukanaya codka hoos u dhigaya cumar buu haddana soo maray codka kor u qaadaya hadhowbu labadoodii wuxuu leeyahay mid waraysanaya wabidaalika arrinka amara abubakrin wa cumar abubakar iyo cumar buu faray radi allahu canhuma labadii sheekh oo muslimiinta islaamka abubakar iyo cumar wadaalika wax arrinku wuxuu ahaa xiinamaa kharaja leylatan habeen buu soo baxay maaragtay nebigu sal alay wasalam xiinamaa waqtiga kharaja uu soo baxay leylatan habeen faidaa huwa biabi bakrin mase abubakar buu la kulmay radi allahu canhu yusalli tukanaya yukfidu sawtkiisa wax kamida hoos u dhigaayey codka abubakar hoos buu ahaa wa mara bicumar bn khadaab buu soo maray radi allahu canhu wahuwa yusalli isagoo tukanaya raafican sawtu isagoo codkiisa kor u qaadaya falama ijtamacaa markay ku kulmeen labadoodii cinda nebi sal alay wasalam labadoodii markay nebiga u yimaadeen qaala wuxuu ku yidhi yaa abaabakar abubakarow marartu bika waan ku soo maray xalay macnaha waanta tusalli adoo tukanaya tukfidu min sawtika codkaaga hoos baad u dhigaysay qaala wuxuu yidhi qad asmactu waxaan maqashiyey abubakar baa jawaabaya haddaan codkayga hoos u dhigaayey qad asmactu waxaan maqashiyey ma naajaytu qofkaan la koodayay yaa rasuul allah ilaahay aan la kooday waa maqashiinayay ciddii kaloo ay maqlaysa anugu maba danaynayn ilaahay waa maqashiinayay ya saasuu abubakar yidhi wey qad asmactu waan maqashiinaya man axadkii naajaytu aan la faqaayay yaa rasuulka ilaahay waa maqashiinaya wey waqaala licumar bu wuxuu ku yidhi marartu bika waa ku soo maray waanta tusalli adoo tukanaya raafican sawtika codkaagana kor u qaadaya faqaala cumar wuxuu yidhi isna dhinacii isaga kale u jawaabaya yaa rasuulalahi uuqidi waxaan baraarujinaya alwasnaana midka lulaysan wa adrudu shaydaana shaydaankana waa burinayeybi codka qur-aanka inuu ka cararo shaydaankana waa burinayeybi ninka hurdadan ka kicinaya in lay maqlo sida xaafadaha iyo qirada intay maqlaan ay ku kacaan iyaguna salaatulika tukadaan wasnaan annaa'im qofka hurda oo gamacsan laakiin gamaariyoonayo hurdo sax aan hurdin wey saasuu hoos kaaga fasiraya saas wey wuxuu leeyahay qofka hurdo laakiin aan hurdo aan waxa weeye alwasnaanu annaa'im alladii laysa bimustaqriqin fii nawmihi waa qof hurdo aan hurdadiisi ku maashoono aan si fiican u gab'in weeye kaasaa wasnaan la yidhahda waaya waa qof hurdaysan wey waa lulmanaya qofka marka hurdada yaroo lulmadaa ku jira aan weli si fiican u gab'in kaasaan hurdada ka kicinaya buu leeyahay cumar shaydaankana waa cayrinaya yaa rasuul uuqidu waxaan baraarujinaya alwasnaana midka lulaysan wadrudu shaydaana shaydaankana waa burinaya faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi yaa abaabakrin abubakarow irfac kor u qaad min sawtika codkaaga shay-an wax ka mid ah abubakarow adigu codkaaga xoogaa kor u qaad waay waqaala licumar wuxuu ku yidhi ikfid min sawtika shay-an codkaaga xoogaa hoos u dhig xadiiskan maxaa laga qaadanayaa dadkan uu leeyahy cumar waa kicinaya haddaysan tukanayn horta waxyaaba hadda buuq ka dhajiraa jira waliba bisha ramadaanka buuq u badan yahay masaajida mikrofoonada ku badan dad badan iyo dad iska waayeela iyo kuwa xanuunsan iyo carruurna waa jiraan mikrofoonada halakan maba ka dhici karta meesha hadda joognaay laakiin meeshii wadamada muslimiinta dhexdooda mikrofoonkii mar buu dad dhibayaa xilligiina xilli waajib salaad waajib oo inta la adimo dadka imaada laleeyahay maaha sunna la tukanaya marka marxalad dadka jooga oo qur-aanka usoo diyaargaroobay oo masaajidkana ay maqlaan dadka kalena aan lagu dhibin sidaa hadda aad maqlaysaan oo kale salaatuleyl taraawiixda waa salaatuleyl weeye marka xigmad in la adeegsado ayaa fiican oo codka banaankana la xiro masaajida meelaha codka mikrofoonka codka banaankana la xiro kan gudaha iyo intaan gudaha iyo dadka soo toosay ay ka faa'iidaystaan qirada ka faa'iidaystaan waayahay taa cumar uu leeyahay shaydaankan ku biranay dadkana hurdada kaga kicinaya waaya cumar qawi uu ahaa laakiin waxaa la yidhi xoogaa hoos u dhig baa layidhi tii abubakarna waxaa la yidhi maya ha lagu maqlay xoogaa kor u qaad meel dhexa isugu keena khayr alumuuri awsaduha diinteenna waa saas weeye
وأما حديث كان هلك وكان يقول وحها حديث كاس وحويه أبو داود يا حاكم أيا وريه وأنا صحيح يا حاكم ذهبنا وقوها فقيوي حديث كهراء وكان وحها النبي يقول مدير هذا واحد الباني بعد هيا صلى الله عليه وسلم الجاهر مثل الجهرية بالقرآن كالجاهر بالصدقة قف صدقة الجهرية وي والمسر بالقرآن قف القرآن كهوس آخرين يانا كالمسر بالصدقة قف صدقة هوس قرين عيوي يا عجيب قف القرآن كالجهرية وقف صدقة الجهرية قفك قرآن كهوس آخر السنة ضدك نفس كلمة مقاشيني ضدك كلا كل هوس آخرين يانا سنوا قف صدقة قرصنا عيوي ساس كل شبه كوا فضل بدن كيا لبدا فضل بدن إنك صدقة قرية إنك صدقة إنها ضدك ميل وجهنا كبحية يا كان hoos mararka qaarkood waxay fiican tahay in dadka hortiisa lagu bixiyo si ninkii soo qaaday kiishka dhan oo lacagta soo qaaday lagu wada dayday dadkii dhan xoolii soo gurin guriga ku laabteen mararka qaarkood dhiirigelin bay noqotaa laakiin inta badan qarsoodiga ayaa fiican inta badan qarsoodiga fiican yaa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayru lakum saas weeye يا حاليا هذا صدقة الظاهر السام فالنعمة ما هي وي وحلا بحيا وان يرى نعمة وي وفي عنتها وي لكن وين تخفوها وتؤتها الفقراء هذا تاد قريسان ولي ضير تسيسان ما هنا من درجيس هوس وجيسان ما ولي بقى ضير تسيسان بالي هو فقراء أباهن يا تاسع خير بدن بالي اسمه تفضيل بقى كتشره كواين قريبته خير بدن تاعي واي حديث كاسنا waxa warshay Abu Daawud iyo Xaakim wana saxay yaalay dahabina waa ku raacay way wuxuu qabsaday markii Sheekh Albani ciwaan kale ma kaana wuxuu nabigu ahaa sallallahu alayhi wasallam yaqra'uhu mid akhriya sallallahu alayhi wasallam fi salawaati salaadaha waajibka oo shantaaba wuxuu noo keenayaa qiraad ku akhrin jiray inta aanu ka fahmay inta aan hadda degdeg bal horta waxa inoo imaan doonee salaadaha waxa ugu dheer salaada subax baa ugu qira dheeray haddaan duruufi jirin haddii duruufi jirto labada qulacud barnaamij qulacud barfaq baa lagu akhrinaya haddii degdeg jiro sida aad arki doontaan salaadaha waxa ugu qira dheeray salaada subax duhurka inta kale ugu qira dheer oo waliba ragcadda koowaad aad u dheer tahay dadka inay soo gaaraan baa nabi ula jeedan waa la yiraahdaa cishaha iyo maghrib cishaha iyo casarkuna waa isku dhow yihiin maghribka ugu qira yar maghribka aad aragteen oo dadku qira iska qabsanayaan oo dheeraynayaan marmar haa waa nabigu marmar waa dheereeyay laakiin inta badan maghribka ugu gaaban ay waqtigiisa ciriira way waama ma kaana wuxuu nabigu yaqrahu mid akhriya sallallahu alayhi wasallam fi salawaati salaadaha akhrintii min as-suwar wal ayat suurada quraanka kamid ama aayada quraanka kamid aayadaha hadii la yiraahdo suurad dheer laga soo qabsaday فإن ذلك كاس يختلف واختلاف سنه باختلاف الصلوات الخمس شنطة صلوات سيس خلاف سنه وكلا بدلين يو غيرها صلاتها شنطة وحي كبحسن سنياش وحاس وهاك قاضو هاك بمعنى خذ قاضوي تفسير ذلك أرنك كلا فاهين تيضا مبتدئين أنه كبلابنا بالصلاة الأولى صلاة أهرسة ومن الخمس شنطة كاملة وهي صلاة الفجر صلاة الصبح وي صلاة الفجر كان كبلابنا واي صلاة الفجر كان بلابيا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها وآخرني بالدوال المفصل مفصل كآياتها دادير سورتها دادير بآخرني مفصل كهذا يرين الصوم مري سورة القاف لقى صوب بالله لا برب الناس وي مركي قيمتي سدادير وكر سورتها كروي والدارية دي ميلها كتيرة كواسا دوال نقنية بالدوال المفصل وكل شيء دونا مركي السبع الأخيرة وحلوت من السبع هي السبع الأخيرة سبع الدموي أو من السبع الأخيرة من السبع الأخيرة وي من القرآن وأوله قاف وكبلا على الصحيح كما تقدم واي سبع عودة من القرآن كوي قاف وكبلا بالناس وكل ما داوي مفصل كتاب سال ولا شيء لا دوالك يدنا واركين كيس بعدين رافت حسابك كم ده يسور الله كحيجة إلى والداريات ملها السورة الله للوي وعلى صوص عني لا مل حلا يمنيا فكان أحيانا مرر وحوها يقرأوا من آخر الواقعة سورة الواقع الآخرين واقعنا واحد كم بتاعي دوال المفصل بكم بتاعي ونحوها وحي لمد من الصور في الركعتين اللي بركع عود بكو آخرين سورة الواقع ولا بركع عود وكلا جوينا أيوه وقرأ وحي آخرين من سورة الطور مرنا وحي آخرين سورة الطور بآخرين واي وذلك في حاجة الوداع ولو واحد مركز دور آخرين حاجة لو يغن حاجة الوداع مدة هراء ولا بركع عود كنت كذا سورة الواقعة أحمد بن خزيمة صوص صاري حاكم لو صحيح يا لواء صوص صاري ذهبنا وقراعي مدة دمه حاجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم
سورة الطور أخرينا بخاري مسلم بصوص صاري وكان أحيانا مرة وحوها يقرأ من أخري قاف والقرآن المجيد ونحو وحي لما في ركعة الأولى ركعة كواد وسورة قاف كلها من ركعة كواد مسلم الترمذي بصوص صاري رواية قليل كانوا قصص صاري وكان وحو أحيانا مرة قاركود يقرأ من أخريه باختصار المفصل سبعة مفصل قاف إلى بربناس ودحية باختصار المفصل سورة دي فكاكابا وسورة هوس المرسلات دي وحي كهوس يوي واي markaasuu sheegay ida shamsu ku wirad buu akhrinay ida shamsu ku wirad suura caamay ba ku jirtaa iyadu waay marka taas maaragtay akhrinay muslim iyo abu daawud baa soo saaray waqara maratan wuxuu akhriyay ida zul waxa soo dhan waxa weeye waa salaad subax waqara uu akhriyay maratan mar wuxuu akhriyay ida zulzilat suuradaas uu akhriyay fi ragcatayn kiltayhima labada ragcadood mid kasta waa ku akhriyay waa salaad subax hada ogow ragcada hore ida zulzilat buu ku akhriyay tii labaadna markuu ida zulzilat buu ku akhriyay iyadana isla suurada lafteedii waxaa bannaan suuraddii markii hore akhriyay inay ku soo celiso waayo xataa qaala raawi xadiiska ilaa uu ka yidhi falaa adri garan maayo anasiya rasuulullahi sal rasuulka ilahi ma ilaaway suuradda inuu markii hore akhriyey am qara'a daalika cabdan mise kas buu akhriyey kas buu akhriyey sharci weeye wuxuu dadka tusaya nabiga sal slam inay suuraddan markii hore ku akhriday ragcadda hore isla iyadana ragcadda ku akhrin kartid wey ayay dhibaato lahayn waayo xadiiska abu daawuud baa soo saaray bayhaqi bisanad saxiix ku soo saaray والظاهر سيدا موقتا بولي الباني أنه النبي عليه السلام نبت قال يودوش صحاته فعلى ذلك سيدا وحو أسمي عمدا كسب أسمي للتشريع ذاتك إنه الشرعي تشريع أسميه والشرعي أحيان ذاتك أبره سورة ذات رقعده وركو أخرين هذا رقعده لوان ذاكو أخرين كرت وقراء وحو أخرين مرة في السفر يسوق السفر كتيرة ولا أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس لما يقول أعوذ بسلاسل وحكوتو شيء يا marka aray labadii qulacood buu salaadii subax ku tushay waa salaada ugu qirada dheeray duruufta la fiirinaya marka safar baa lagu jira waqaala marka taasuna waxa weeye abu daawud ibn khuzayma warinaya ibn bishra amaalib ku weeriyay ibn abi shayba xaakim waa saxiix dahabna waa ku waafaqay saas soo oranaya waqaala uqbah ibn aamir al-juhani saxaabiga radiyallahu anhu ayaa nabigu wuxuu ku yiri iqra akhri fi salaatika salaadaada al-mu'awadatayn labada qulacood ku akhri فما تعوذ كما إلهي كما مجن قاله متعوذ مد واحد مجن قليا بمثل ما لبضع صوك له قفك إلهي مجن قليا الله مجن قليا وح كلا أو كقصر رأيه لقوم مجن قلي كرامة شرا مركل لبضع صورة الله جربه لبضع صورة مركل الله جربه واي تاسنا وحويه أبو داود أحمد باوري سنة صحيح كوريين واي وكان وحوها رسولك أحيانا مركل قاركو يقرأ من أخرية بأكثر من ذلك أنت وحكى بدن وكان يقرأ 60 آية فأكثر لحدا آية ضاد وحكى بدن بالصلاة الصبح كو آخر شيء قال بعض رواته حديث رج ولي قارك وحي هذا لا أدري ما قرن يجي أحد كاسي في إحدى ركعتين لو ركعود ميو كو آخري لحدا كآية ضاد أو في كلتيهما مثل ما آية ضاد باللحدا كاسو كل حيسي تاكل قرن ما يجي لكن 60 آخر شيء رواية كلام مسلم واحد جبتها 60 إلى 100 نحيس لحدا بوتشوكو آخر شيء إلى بقول بكتكن شيء صلاة الصبح لبدا ركعود با 60 الى 100 isku ahaan way وكان وحو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من اخر بسوره الروم بو اخري احياء سوره الروم بو اخري النبي صلاه الصبح سوره الروم waa suurad dheer weey waxyaana marka qaarkood bisuurati yaasiin buu akhrinay salaad subax ku tukanay way inta soo dhanba nisaay baa wariyay ahmed iyo bazaar baa iyaguna wariyay waxaan filayaa aan ka booday maxaan ku radaa وكان احيانا يقرأ باكثر من ذلك فكان يقرأ 60 آية فاكثر تاس واحد بخاري مسلم انت سو صاري قال بعض الرواة وحي لا ادري قرن مايو يحيد ركعتين او كلتيهما لما ركعود بينه كنت كني لحدن كا ينو مid kale كنت كني وكان يقرأ بسورة الروم اخري iyadana waxa ku soo aroortay suuratu الروم nisaa احمد iyo bazaar ayaa soo saaray واحيانا بسورة ياسين buu akhrinayay iyadana waxa soo saaray احمد بسند صحيح احمد بن حنبل رحمه الله ومرة صلى الصبح مرنا صلاة الصبح بتكذي بمكة مقالة مكة فاستفتح وحفر في سورة المؤمنين يا سورة المؤمنين سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون وعجرت سورة كلا سورة قافر نوالا نها لكن ديسانو كلا اللي يرادو دي قافر هوس بيكون شرطاية سورة اللي هي صدح يلواتناد وسورة المؤمنين وسورة قد أفلح المؤمنون سورة ده سكوت كذا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جده هذا حتى جاء تكيمي ذكر موسى وهارون على كلام السياق عدينيسا ماشي اللي يقول شيء نبي هارون نبي موسى نبي هارون أو بس رواد شكلية ذكر عيسى ماشي سورة قصة نبي عيسى كهذا هل كاسو نبي قاري قوس بكاجة الشيء ماشي النبي موسى قصة نبي هارون يكون وحوي قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا
وسلطان مبين آيات داسوي إلى وأما عيسى ففي الآية التي بعد هذه الآية بأربع آيات أما نبي عيسى هذه اللي ولد وسيدا هواد وشكينيان أفر آيات باليب ودايا وجعل آية مركب وحل آخرين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين تسوي وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين لبدي من ولاد هالكان هوسو كقري كشكين أي هذين مسؤول من مركي نبي موسى نبي هارون ماشي قصة الله اللي قلت شيء مش قصة نبي عيسى اللي قلت شيء بيشكين رواد شكا وحا شكينا بعض رواد قاركود هل كان مركو مريناي قصة النبي عيسى أما قصة موسى هارون مركو مريناي أخذته النبي وحا قبطي سعلة الصحشو فركع مركاسو اسكر ركوعي واصحد النبي صلى الله عليه وسلم يا سعلة يا قفكو إنه صحده مركز صحتي قف كو بلا قرآن كودي كرويدي واي مسلم يا بخاري مسلم باوري بخاري تعليق هام بكوري إرواء الغليل وقصه صاري وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرك قاركود يا أمهم إمام بيقول نقول فيها صلاة بالصافات سورة الصافات إمام بيقول أها وكنت تشريوي سورة الصافات صلاة صباح وعديرته سورة دير ويدنا ولما آياته قاقابين آيات بدلنا واي ساسو سمين النبي صلى الله عليه وسلم إيضا أحمد باصوص أبو يعلى لما مسند بإليهم مسنديه ما بيكون صارين مسند أحمد يا مسند أبو يعلى عبد العزيز المقدسي بقى يسوي مختار كتابك كوسو صاري وايه وكان يصليهما يوم الجمعة مداني دتك عادوا يقاني وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاة الصبح midku tukada yawmal jumcati maalinta jimce tan jimcaha qaar ku tahay jimcaha salaad subax oo dhan baynu ka hadlaynay halka si gaar ah salaada subax oo maalinta jimcaha subaxa jimcaha ah labada suuradood ku tukan jiray wakaana wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yusalliha salaada subax midku tukada yawmal jumcati bi alif lam mim tanzil as-sajda suuradaas ku tukan jiray weeye waa 30 aayadood suuradaasi waaye في الركعة الأولى ركعة كواد وفي الثانية مد لباد وحكتون جري بهلا تعالى الإنسان حين من الدهر هلا تعالى الإنسان وبدأ كذلك كنت جري تنهار صدق آيات بكنت كني هلا تعالى الإنسان وبدأ من كنت كني أيضا تضمن مركا سورة الظهر والصدق هلا تعالى الإنسان وكوبي الصدق واي لحظة بيسا كنت جري كوي لحظة آيات دوي معناها سوي واي بخاري مسلم بانوري حديث كان صحيح وي بخاري مسلم وري واي وكان وضعها يضيل مد ديريه مثلا انا قاعد ugu fiirsada meesha dhibaatada ka jirta waxay tahay salaadii waa la iska wadaa dhulo lagu socay weey salaada حديث كان u fiirsada وكان وضعها يضيل مد ديريه في الركعه الاولى ركعه hore ويقصر وحو gaabinay في الثانيه ركعه labaad حديث كان البخاري مسلم soo saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada labada ragcadood oo hore ayaa dheera labada dambe ka dheeraayeen labada horena tan horaa sii dheeray ragcada ka dambeysay sii gaabanaysa waliba salaada duhurka inoo iman doonta in dadku soo gaaraan soo diyaar garoobaan soo weysaystaan intuu salaada galo oo qof ka tago ordo oo meesha baqiic dhabarkeeda tago soo xaajaysto oo soo hawlihi soo qabsado oo gurigiisa tago oo soo weysaysto iyadoo wali lagu jiray safka soo gali jiray ragcada koowaad waa dheerayn jiray salaada duhurka salaada asaasi laba ragcadood horaa dheeraysa sacad ibn waqas markii nimankii reer kufa ku qabsadeen salaada ma yaqaan bay dhaheen markaasuu Umar wuxuu ku yiri ka waran salaadaada sida nabiga arkay baan u tukan jiray wali waa hadal ku daray tucallimna al-arab as-salah ya wuxuu yiri awwal qof dhig u daaday ilaahay dartiis aanu aha falaar ku riday nimankii mushrikiinta quraysh intay diintiisa ku soo weerareen iyagoo duuraha ku tukanaya qof dhig ka keenana oo reebi wuxuu yiri nabi maxamed baa la tukanay salaada ragcadaha horaan dheereeya labada hore labada dambe waa gaabiya waa kala dheereeya kuwa horaan dheereeya markaasuu aad Umar ka helay markaasuu daaka dhannu bika ya aba isxaaq waa kuyada sacad ibn waqas weey saas waa sida lagu malaynayo weey rasuulka ilaahay baa janna ugu bisharay casharatu mubashirin buu ku jira faatixul iraaq buu ahaa nabiga sallallahu alayhi ilaahay wuxuu uga bari afka wuxuu ka sheegay ducadiisa in la aqbalo wuxuu yiraahdo hatta waxa la gaaray wuxuu gaaray inuu ilaahu wabiga nooga dhibri markaas ka gudba fardii ducadiisa maqbuul iska ahayd abti isagii waxa nabiga abtiyaashi qoyska abtiyaashi saha Abdurrahman ibn Auf iyo Sa'ad ibn Qas labada Zuhriyaan bay ahaayeen nabiga reer abtiyaasha waa way marka Sa'ad ayaa waxa la salaad ma yaqaan yaa baxsanaya qof baxsanaya ma leh salaad ma yaqaan bay yiraahdeen kuwa saa dhahayana hadda la seef lagu soo muslimiin waxba garan maayaan waayahay وكان يضيل في الركعة الأولى ركعة هرو ديرين جري ويقصر في الثانية مد لباد وقابين جري ركعتها وسيء كل هريان صلاة الصبح مد هرا ديرين مد ما القابين
hadda markii la tujinay waxaad arkaysaa nin imaama qofka imaamka waxa raay inuu yahay qof baraarugsan nin imaama arkaysa qirada qaaday markii la maqlayo oo wixii qarsoon wax qarsoon markii la maqlayo suurad buu qabsanayaa suuradda wax yar buu ka akhrinayaa markaasuu 5 aayadood buu akhriyay ragcaddii hore 25 aayadood buu ragcadda dama akhrinaya weligii inuu xadiis dhageysto uma leeyahay qofkaas ragcadda hore 25 ka akhri midda dama hadda 5 ka dhig tadama markaas la gaabiya ina fahamtid muhiim weey وايه القراءة في صلاة الفجر صلاة الفجر كقراءة الآخرية في سنة الفجر ما كتشيدا يقرأ هذا واجب كبير هذا الهيني لو هذا ركعات والسنة كهرية صلاة الصبح قراءة الآخرية أنت بدن نبي قل يا الكافرين يقول قل هو الله بآخر شيء لكن آية وآخر شيء واجب وأخوه كان القراءة في سنة الفجر قراءة الآخرية لو هذا ركعات صلاة الفجر كهرية labada ragcadood salaada fajarka ka horeysa nabigu safaran walaa hadaran weliga kama tegin sunayaashii ladaa musaafirta ka tegaysa labada subaxa la socda kama tegaysin khayru min ad-dunya wama fiha adduunka waxa dusha saaran labada ragcadood baa ka khayr badan taas waaye وما قراءة النبي قراءته في ركعتي سنة الفجر لما ركعوا سنة فجر فكانت واحد خفيفة جدا من أعظم فضول بها وايه أحمد باب السنة صحيح كورينا يني فضولي لا ركعوا النبي فضولين شري حتى إن عائشة رضي الله عنها إلهي رأى لها كانت عائشة كانت واحدة تقول مثل هذا هل قرأ فيها بأم الكتاب والرسول كفاتح هذه ما آخر يسير لما ركعوا قابنا نر بدنا سنة نيرين بدنا النبي يقول فضول بأمي كم أوجب حي لما ركعوا سأدي ما كنت هاجن مركي لا أقدمه marka uu diyaar garoobayo salaada subax uu tukanay sunnaha laba ragcadood wax khafiif ka dhigi jiray laba ragcadood waa fududeyn jiray marka waxaan ka shakeeyay bay tiri hal qara fiha salaadaha laba ragcadood ma akhriyo bi umm alquran faatixada bi umm alkitab baan u jeeda kitaabka tii lagu maartay hooyada u ahayd faatixada loo jeeda waay bukhari muslim baan xadiiska wariyay aisha waxay tii ka shakinay inuu akhriyay faatixadii in kale suurad kale iska badhaaf wa kaana wuxuu ahyaan mararka qaar kood الباني بعدها النبي مرة قال وحها يقرأوا من آخرها بعد الفاتحة قدال كذا في الأولى ركعات ظهر أو منهما في الأولى من ظهر أو منهما لما ركعات كم آية بآخرين شيء وايه مو آية يضاوي آية سورة الضلالات وبقرة آية بقول يسودني إلى حادوي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية داس آخرين شيء قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آخرين وفي الأخرى ركعات ضلالنا وآخرين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها آية أخرى سورة أعراف سورة آل عمران بيكون شرتا آية لحظة أفراد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله آية داسوي وربما لا أركي قرائن وآخرية بدلها لدا عندما قل يا أهل الكتاب دان إنه بدل كذا كو آخريه tii hore suuratu baqara ku jirtay inuu midaan damo suuratu al imraan ku jirtay inuu al imraan kale ku bedelo oo akhriyo aayada maxaan ku raad 52 suuratu al imraan kamid oo maxay tahay falamma hasa ciisa minhum al kufra qala man ansari ila allah falamma hasa ciisa nabi ciisa markuu dareemay minhum nimankii nasaarada ka dareemay al kufra gaalnimo man ansari ila allah ku yiri yaa ilaahay ugu heelinaya marka nimankii xawaariintii baa yiri nahnu ansarullah nimankaas u soo baxay waayahay xadiiskaas hore ibn khuzayma ayaa waxa wari muslim iyo ibn khuzayma xaakim baa warinaya kan damana waxa warinaya surada bedelka falamma hasa ciisana waxa warinaya muslim iyo abu daawud واحيانا مركي قار كودنا يقرأ وحي آخرين النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون في الأولى ركعت ظهرك وآخرين قل يا أيها الكافرون وآخرين قل الكافرون والح آيضات وقل هو الله أحد وآخرين يدنا وأفر آيضات في الأخرى ركعت الضمي ميدان ذاتك آدو يقاني ركعت ظهر قل يا الكافرون الآخريو ميدان دمان قول أعوذ قل هو الله من الآخريوي كعبدا مركي اللي قلت كان مقام إبراهيم لبضانا الآخرية قل يا الكافرون والتوحيد لبضوا توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة وقل يا الكافرون توحيد العبادة وي توحيد الأسماء والصفات نوا سورة إخلاص وي قل والله واحد واي تاسنا waxa weeye in labada suurad la akhriyay maxaa ku raaf labada ragcoo sunnaha ka horeeya salaada subax ka horeeya muslim iyo abu daawud baa wariyay xadiiskaas wasamica waxa laga wasamica waa maqlay rasuulku rajulan yaqra wa akhrinaya suurata al-ula suurada hore waa tee qul ya ayyuhal kaafiruun bu maqlaynin akhrinaya في الركعة الأولى ركعة ظهر كو أخريني فقال وحير هذا عبد آمن بربه هذا كاس عبد أضوي آمن بربه ربي رمي مركو لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين أنت أصل إسلامي قف أنت قف إسلامي نقاس وني إلهي رمي نقاس إلهي برمي النبي صلى الله عليه وسلم مركو ساعة صخري
تي لبعض بعد عضي هذا عبد آمن بربه ثم قرأ وحي آخر ينكي السورة الثانية سورة لبعض في الركعة الأخرى كعبد لبعض فقال وحي هذا عبد عرف ربه كاس أدون ربي اسكرتي وي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاس إلهي بقر أدون كاس ربي اسكرتي وي واي والله سبحانه وتعالى أعلم.